ثمرات تلاوة القرآن الكريم كلمدينو waxay ku saabsan tahay quraankan kariimka ah in Ramadaan ta iyo mar walba akhriyayno akhrinta midhaha laga goosto ama faa'iidooyinka laga helo ama xigmadaha ku jira tobaneeyo qodob meelaha taasi waxay keenaysaa markaynu dhageysano inay quraanka inagu dhiiri geliso oo qofka yaqaanaana uu akhriyo qofka aan aqoonina uu barto oo aanu ka qadin ilaahay kalaamkiisa midhahan waxa helaya qof kasto akhriyo ama ha garanaya tafsiirkiisa iyo macnihiisa ama yaanu garanin القرآن متعبد بتلاوته قرآنك waxa la inagu adoonsaday akhrinta inaynu ilaahay ugu cibaadaysano inuu qofku macnaha garanayaana way ka sii macaanta way ka sii faa'iido badanta waxa uu horeeyay inuu rasuulku amaanay sallallahu alayhi wa sallam qofka quraanka akhriyaya wa wasafahu bi annahu al-utruja waxaanu ku tilmaamay inuu yahay utruja qofka muuminka buuda quraanka akhriyaya waxa uu ka dhigay geedka utrujada la yiraahdo kale utrujadu waxa weeye geed udgoon macaan labadaas isku daray quraanku la udgoon yahay iimaankana uu la macaan yahay qofkani ama liin macaanta ha la yiraahdo ama saytuunka ha la yiraahdo ama timayruuda ha la yiraahdo waa shay udgoon iyo macaan isku darsaday وحديث صحيح هذا كسر مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وحل بعضه كم إذا مرها مضاعفة الحسنات عن كل حرف ولا ضخر ضبع طبعا شارين لقول الله بيو أيو نبي حسين صلى الله عليه وسلم هل مرهدو قفك قرآن كرما أيو قرآن كوا صدح بقوليو يتضباطني السيادة كن أو حرف marka inta asaa lagu darayaa sifir baa lagu sii darayaa malaayiin xasanaad si aad u hesho alif lam mim la aqulu harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf alif lam mim waa harf ma oranaya ibn nabiyada laftigeeda saddexdaana soddon ajri baa lagu xisaabinaya sida uu tilmaamay xadiiskii saxiixa tirmidhi min xadiis ibn mas'ud وحسدحاض مدها كمدة تجميع الملائكة ونزول الرحمة والسكينة عند الاجتماع لقراءة القرآن سدانا وحد المامي حديث كمسلم من حديث أبي هريرة على واد ضلعينا عالم كقرين وضلعينا مركين القرآن كآخرين عالم كي قرين لا تشوفه إلهي ملائكتي سبا صوروريا إنه حيرا إن دقيسانيا هيسير يسني مرداد إلهي كلام كي سي آخريش caalamkii karo joogaba marka ciyaarta ka ilaaliyo soo jeed dadku markay kalaamka ilaahay iyagoo soo akhriyay ama akhriyay ku ururaan buu nabigu guryaha ilaahay naxariista soo degaysa malaa'ikta soo degaysa ilaahayna wuxuuba ku xusaya ama qoliyaha ugu faanaya malaa'ikta agtiisa thamarada afraad waxa weeye taqwiyatul iimaan fi alqalbi wa ziyadati إيمانك قلبك نيالا كردي أو كبعية القرآن قوت القلوب القرآن هو قوت كإيه راشنك قلبك إيه الروح ذا كبعية هدو شرك قوت كاعنا يعنا ذا قلبك وحقوذي قرآنك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون dadka muuminiintu waxa weeye kuwa quraanka la akhriyo qalbigooda uu iimaanka u kordhiyo oo u kabciyo qalabka shanaad qaari ul quraan ghayru jafi anhu min ahli allah wa khaasati qofka quraanka akhriya ee ehelka ee ku dhaqmaya ilaahay buu ehel u yahay sida xadiis saxiix ah tilmaamaya oo ibn maajah ku sugan ahlul quraan ahlullah wa khaasatu cid waliba ehl bay leedahay ilaahay kalaamkiisa cidda ehelka u ah ama ha fasireen ama ha bareen dadka ama ha barteen ama ha akhriyeen cidda kalaamka ilaahay mar walba ku noqonaysa
وأهلك إلهي بو النبي حسين صلى الله عليه وسلم قضبك اللحاذ يرفع قارئ القرآن في الجنة أعلى الدرجات درجooyinka u sarsareeyo kolba kor ugu sii noqonaya oo uu sii dalacaya qofka quraanka akhriya macnaheedu waxa weeye marka jannada la taga amalada kale oo dhan way joogsanayaan ilaa qiraa'atul quraanka akhrintiisa way soconaysa oo qofkii muuminka darajooyin buu ku kororsanaya yuqaalu liqaari alqur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda aakhir ayatin taqra'uha waxaa lagu odhanayaa qofkii qaariga ahaa qur-aanka akhriyi jiray markuu jannada galo akhri oo si fiican u akhriyo tajwiidi oo kor u soco darajadaadu waxay gaadhaysaa aayadda u dambaysa markaad joojiso ayay darajooyinkaagu joogsanayaana way biirayaan isagii baa kororsanaya qofku darajooyinkii qodobka toddobaad waxa weeyaan yashfacu alqur'aanu lisaaxibihi yowma alqiyaama qofkii ehelka u ahaa qur-aanka akhriyi jiray wuu u ergeynaya ayaanta adag ee qiyaamaha nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalayه wasalam xadiid muslim ku sugan الصiyaamu wاlqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha siyaamka iyo qur-aanka waa soomkan aynu soomannahay iyo qur-aanka aynu akhriyayno labadaasi way u ergeynayaan qofka mu'minka ah dee waa erge ilaahay u ogol yaho uu aqbalayo qur-aanku wuxuu leeyahay habeen oo dhan buu akhriyayo maalin oo dhan buu akhriyayo ilaa hurdadii baan u diiday soomkuna wuxuu leeyahay raashinkii iyo cunadiisii iyo wixii uu doonayaan u diiday waa laga aqbalayaa ayuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qodobka sideedaad yuzaad qaari'u lqur'aani binnuuri walbaraka wuxuu kororsanayaa qofku intuu qur-aanka akhriyayo midhuhu goosanaya ka mid ah laba arrimood aynu baahi weyn u qabno iftiin iyo barako mar walba barakaynu u baahanay barakada qur-aanka laga helaya mar walba waxaynu u baahanay iftiin qur-aanka laga helaya wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina dad yahow waxaanu idiin soo dejinay baa ilaahay uhi nuur cad oon qarsoonaynba dadka qur-aanka ku noole la nooli way nuurayaan nuur la arki karayaabay nuurayaan barakana uu wataa ilaahay baa wuxuu uhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab kitaab baanu soo dejinnay barakaysan si loo dhadhamiyo macnihiisa dalkaa ku barakoobaya oo ehelka oo qofka oo nolosha oo wax waliba barako markaad doonaysa ilaahay kalaamkiisa ku urur qodobka sagaalaad waa qiraa'atu lqur'aani tuhabitu lquluub wa shifaau suduur waxaa ku caafimaada qalbiguna wuu degaa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن من أكبر الذكر حسك إلهي قلبك كدغا إلهي ذكرك ويننا وابا قرآنك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين dadka ilaahay rumeeyay dajin buu yahay quraanku daw uu yahay bushaar uu yahay dadka muslimiinta ah قارئ القرآن يذكره الله تعالى مر هذا القرآن في آخره إلهي بعد حسيس ودي ذكر جسد كتير سجد الله سجد الله فقيس سجد الجوابيس إلهي نو كحسيا ربي وحول فاذكروني أذكركم حصى مرتين القرآن كيس آخرنا وين حسني أنا وانا ذي الحس بولاي مرك لا يحول ولا ذكر الله أكبر هذا حسك إذنكوا حسيسا وحكوين هو إلهي ذي حسيو inaa idinku ilaahay xustaan waxa ka weyn inuu isagu idin xuso xuskiisa waxaynu ku gaaraynaa inuu isagu ina xuso ina amaano qaari'u lqur'aani yazdaadu cilman wa xikma qofka qur-aanka akhriya wuxuu kororsanayaa un xikmad laa tanqadii cajaa'ibu cajaa'ibtiisa iyo cilmigiisa iyo jawhartiisu ma dhammaadaan qofku mar waluu sii wadaba muggiisaa u sii weynaanaya بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وآيات عرض بإلهي القرآن كيو آياتها سوحي قالين دادك علمي قال سي قلبية دوده مركا دادك قرآن كإهل كواهي وأقويها وي في صدور الذين أوتوا العلم دادك علمي قال سي آياتها قلبي قوده كتيرة آياتها سا علم إيه حكمة كردية
cilmi iyo xikmad oo dhan halkaasaa laga soo dhuraya laga soo qaadanaya sidaa ilaahay baa uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab dadka cibaadaysanaya ahaayeen kuwa aqoon-yahanka ee cilmiga leh idan markaa 11 arrimood waa in yaroo ka mida barakooyinka midhaha faa'iidada laga helo akhrinta qur-aanka weligaa ha ka qadin maalin maalmaha ka mida akhrinta qur-aanka wardi ka yeela siduu ahaa nebiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam sidii asxaabtii su-aalay uu kula taliyey qur-aanka inteen akhriyaa buu bishii hal mar akhri buu intaa in ka badan baan karaa buu 10kii cisho markii dambe 3 cishuu soo gaadhsiiyey 3 cisho wax ka yar qofka ku akhriya ama fahmi buu nebigu sala allahu calayh wasalam calaa macna alxadiid idan qaafil buu noqonayaa qofku haddii uu qur-aanka ka qado akhriyi waayo ama ilaawaba intuu xafido sidaa daraaddeed waxaynu isku waaninaynaa inaynu ka faa'iidaysanno cibaadooyinkaa isxambaarka isasaarka ah waa qiyaamkii waa siyaamkii waa qur'aankii waa sadaqadii waa dikrigii waxaasoo dhan markaynu isku beerinno maalin adag baynu insha allahu tacaala u aayi doonaa sala allahu calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam wasubxaana rabbik